waxaa magaalada la saray cariga Ingiriiska lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayo magacaabista wasiirka warfaafinta ee dowladda Puntland Cabdixakiin Axmed Guuleed. kulankaas ay soo qabanqaabiyeen ururka horumarinta dhalinyarada ee isboortiga dhalinyarada Puntland kaasoo ay ka soo qaybgaleen dad aad u horumaran. halkaasna waxaa ka hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Dude Yaasiin Daahir oo ka yimid dowladda Puntland warbixin halkaas ka bixiyay. waxaa kaloo halkaa ka qaybgalay Siciid Cali Shire oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliyeed. dadka wajiyadooda farxad ay u qabaan inuu noqdo wasiirka warfaafinta nin ka soo jeeda jaaliyadda Leicester, waxayna Ilaahay uga baryeen inuu la garab galo hawshaas culus ee loo doortay. waxaan bogaadinayaa Cabdixakiin Axmed Guuleed oo aan isleeyahay magacaabidiisu waxay leedahay astaamo dhowra. waxaa ka mid ah inay tahay yacni magacaabidiisu mintamin degaan muhiimad goboleed iyo maslaxad qaran saddexdaba. maanta jaanis baynu haynaa inaan ku taageerno nin nadiif ah, niyad fiican, wax qaban kara aan taageerno. Cabdixakiinna hal baan dhihi lahaayo waxaa la yidhaahdaa qofka Afrikaanka ah marka jago loo magacaabo maskaxdiisa nus baa tirtiranta, marka laga qaadana nuskii kala tirtiranta. asbaabta keenta inay nusku tirtiranto marka hore waxa weeyaan waa dadka ku hareeraysan oo u noqda la taliya waxay noqdaan qof waxay noqdaan dad oo jihadii ka lumiya qofka. Cabdixakiin marka insha Allah waxaan kula dardaarmayaa dadka isku hareerihiisa fariisan doona, la taliyaasha u noqon doona, la shaqayn doona inay noqdaan dad wax ku kordhiya aysan noqon dad wax u dhima isaga. Cabdixakiin sidiisaba wuxuu ahaa ragga Soomaaliya wax ku soo bartay secondary school wuxuu kaga baxay Soomaaliya isagoo dhinaca agriculture-ka ahaa. kadib jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ka baxay maxadka Siidam. markuu yimid muxuu ahaa Sweden ilaa iyo political science iyo arrimo noocaas u sameeyay. waxyaalihii uu qabtay ee lagu xasuusto runtii waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa asaasihii Somali Ecological Society, wuxuu memberka ahaa fundraising committee of Somali Ecological Society, general manager of Barakat Bank of Somalia Puntland Press, wuxuu ahaa asaasihii idaacaddii Quraanka Kariimka Muqdisho, qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee meel aysan dadkiisu deganeen idaacad geeya, agaasimihii ugu horeeyay idaacadda Quraanka Kariimka, asaasi iyo mulkiil idaacadda Codka Nabadda, agaasimaha guud ee shabakadda Codka Nabadda, garwadeen ka mid ahaa program Dalmar oo uu ka bixi jiray mowjadda FM-ka ee Radio Resonance, producer of Somali Image USA, member of Diaspora Forum, Sophia Tracking Company ayuu CEO ka noqday. Cabdixakiin Axmed Guuleed magacaabidii wasiirka warfaafinta ee Puntland iyo taageeradiisii iyo marka aniga oo ku hadlaya magacayga, magaciina iyo magaca dhammaan dadka Soomaaliyeed kuwa inta taqaana iyo inta aan aqoonin waan u duceeynaa marka hore in xil la qaado. xil nin qaaday waa nin eed qaaday. Xakiim wuxuu ahaa nin jaaliyadda Leicester ka tirsanaa, xubin firfircoonna ahaa. aad iyo aad ayaanu ugu hambaliyeynaynaa xilka loo dhiibay, waxaana ugu duceynaynaa in Ilaahay xilkaas uu u sahlo. ugu dambeyntii telefoonka kula soo xiriiray dadweynihii ka soo qaybgalay kulankaas wasiirka cusub ee warfaafinta, Ilaahayna ka baryay inuu hawshaas la garab galo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa in kalsoonidaas ay ayagu siiyeen inaan dayicin aan ka dhigto dajinkii ama shaadkii aan ku gaari lahaa himilada iyo waxay ayagu tiigsanayaan oo wanaag ah. haddii Ilaahay raalli ka noqdana dee dhulka iyo waddanka iyo dalka waa la wada leeyahay. anigana dhibkuu baan idinka xigsaday, shaqadana way noo wada taal. marka waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa qof iyo jaaliyad ahaanba inaan isgarabsanno. gacmo wadajir bay wax ku gooyaan, wadajirkaana lagu gaari karaa midadiilada iyo waxa idinka guuxaya iyo waxa annaga naga guuxaya intayna joogto Soomaaliya. Axmed Guuleed waa u hambalyeynaya, waxaan ugu hambalyeynaya marka ugu horeysa sababta ugu hambalyeynaya waxaa ka mid ah waa nin magaalada tan ka tirsan buu ahaa, dhalinyarada firfircoon oo magaalada tan wax badan ka qabatay, hore uga qabatay buu ahaa. intuu dalka jirayna howlo badan inuu qabtay
oo ay xagga warfaafinta uu ka shaqayn jiray baan ka warhaynaa nin firfircoon mutacallimana inuu yahay sidaa daraaddeed waxaan aqalkaa ka qiyaasnay xulkii la xulay inay aad iyo aad ku habboon yahay hawsha loo magacaabay weligii ninka ma arag laakiin se mataqaanaa inta hadda maartay muxuu ahaayey soo gaartay inuu yahay nin firfircoon oo dhalinyaro ah oo mutacallima oo howlo badan oo kala duwan soo qabtay weliba mataqaanaa maartay maadada maartay muxuu ahaayey xilka loo maartay loo dhiibay ee mas'uuliyadda ah meeshii ku habbooneed in loo dhiibay cabdinaasir faarax igaal stuudiyaha itaan birmingham